Hej och välkomna igen vår studio om kanal. Måndag klockan 16 eller klockan 4 och lördagar också TV har sett Master Rashid Sabri Galal ayaad ka daawataan Somali Star TV. Waxaan halka salaameynaa dadweynaha naga daawanaya xaafadaha Stockholm oo dhan ma soo koobi karo. Dhinaca Soodarka iyo dhinaca Noordka kulli waxaan naga daawanaya Soomaalida oo dhan waa ka salaameynaa halkan. waxaa halkan noogu marti ah Saciid Cali Shire oo ah nin Soomaaliyeed oo noo qoray buugan ganacsiga forfatare Saciid oo dhinaca ganacsiga wax ka qoray Saciid intaan u gelin waxaan rabaa inaan halka ka sheego ogeysiis ku saabsan dhinaca oo nolol soo gudbiyay hadda marxuumkii hadda dhintay oo hadda aan ka dhawaajiyay Master Romario ayaa maartay gudoomiyay kooxda uu ka tirsanaa Roxbet Arabi wuxuu taasi ugu dhigayaa maalinta Axadda marka wixii information oo ku saabsan taasna sabtiga ayaa ka heli doontaan TV horseed laakiin inuu Axadda taasi u dhigayo ayaa hadda nolol soo gudbiyay dad badan hadda SMS noo soo qoray hadda kama jawaabi karno telefoonka balan qaada inaan idin furo doono daqiiqada kadib Saciid mar labaad ku soo dhaw marka hore ujeedada booqashada halkan Stockholm waa mahadsantahay ujeedada aan u imi meeshan waxay ahayd bandhig buugeed ka dhacay magaalada Stockholm ee xaafadda Kista maalinta Sabtida iyo maalinta Axaddii ay soo abaabushay shirkad Soomaaliyeed oo intii muddo ah ku hawlaneed inay ururiso buugaagta af Soomaali ku qoran oo iskaansamo la dhaho waxaan rajeynayaa Maxamed Xasan gacmo dheer in aad loo yaqaan waxa ka soo qayb galay qorayaal fara badan oo ka kala yimi Kenya, Ingiriiska, Denmark, Talyaaniga, Mareykanka, Canada ee kala yimi ujeedada waxay ahayd in sare loo qaado qorista in dadka lagu dhiirigeliyo inay akhriyaan wax qoran aqoontii iyo cilmigii wuxuu ku jiraa qof kasta in iyaguna ay wax qoraan dadka ka soo qayb galay oo dhabaantii aan raadiyaha oo ka dhageysan jiray waagi hore laakiin aan chance inaan la kulmo waxa ka mid ah Idaaja oo ka yimid Kenya waxa ka ku jiray Khalid Ali Guul oo ah nin Soomaaliyeed oo degan wadanka Denmark oo qoray ilaa 15 buug oo taariikh iyo suugaan iyo wax kasta ugu jira waxa ka mid ah Xildhibaan in la dhaho oo ka yimid Ingiriiska nin kale oo la dhaho gacmo dheere oo isna ka yimid Talyaaniga ragadu fara badan baa yimid iyo qorayaal kale oo Sweden gudaheeda ka yimid marka waxay laba maalmood oo lagu soo bandhigay qoraalada kala duwan ee Soomaalidu sameeysanadii la soo dhaafay ujeedaduna waxay ahayd hadda buugta qorneyd oo meesha la keenay 200 oo buug bay gaarayeen oo isugu jira suugaan isugu jira gabayo murti taariikh cilmi kuwa oo ganacsi iyo caafimaad aad bay u fara badnaayeen waxaan rajeynayaa dadka Soomaalida inay markaa hadli doonaan cudur daar inay yani aysan haysan wax akhriyaan aad maxaa ka hortaagan Soomaalida ku nool Scandinavian sida ganacsiga Saciid waa su'aal muhiim ah waxaan isleeyahay labaan u kala qaadaya qaybna waa qayb run ah asbaabta ka hortaagan midna waa mid been ah midda beenta waxa weeyaan inaynu isugu sheekayno inaan dhulkan ganacsi laga sameyn karin waxay dadku aaminsan yihiin in ganacsigu aysan ku jirin waxyaalaha u furan dadka Soomaalida ah sida dad badan u aaminsan yihiin in shaqooyinka sare aysan u furnayn Soomaalida oo qofkii marka uu ka fikiro sidoo kale la shaqo hoose dhibta arintaas arin jirta maaha ganacsigu wuxuu ka mid yahay jaanisada u furan qofka ayuu ka mid yahay qofku shaqo raadsan kara ganacsiga gali kara marka qayb waa qaybta khiyaaliga qaybta labaad waxa isleeyahay Soomaalidu wadadan la aqoon ku cusub Scandinavianka institutionada dawliga aysan aqoon haday aqoon lahaayeen waxaan aaminsanahay in ganacsiyada Soomaalida ee ka furan meelahan ay badan lahaayeen waxyaalaha ka dhiman waxa kamid in la helo workshop iyo ku baxa luqadda Soomaaliga macluumaad ku filan dadku inay helaan oo ku saabsan sida loo sameeyo ganacsiga waa inay helaan waa inay dadka la fahansiiyo institutionada waxa meel kasta ka jira support gareeya caawiya la taliya haga ganacsiga dahay institutionada waxa lagu maalgeliyaa lacagaha taxpayers ka canshuurteena bixino qof kasta oo shaqo bixiyo laakiin Soomaalidu waa dadkan ka faa'iideysan meel kasta waxa ka jira course marka waxa leeyahay qaybna waa qayb khiyaali aan isugu sheekaynay oo aan jecelahay dadku inay hilmaamaan ay aaminaan in qof kasta oo kamid ah ganacsi nooc kasta sameyn karo dhinaca kalena in lagu dhiirigeliyo institutionada caawiya dadka inay ka qayb qaataan sidii u caawin lahaayeen aad maxaa keena ganacsiga fashilka ku yimaada markay arrimahaas oo kala dhacaan mar fashil ku yimaada jirto ganacsiga fashilku waa ku badan yahay ganacsiga Soomaalida aad buu ugu badan yahay fashilku waa labo midna wuxuu ka yimaadaa shirkadda dibadda waa external midna wuxuu ka yimaadaa shirkadda gudaheeda ka yimaadaa midka ka yimaada dibaddu waa mid ka aan hadda cabsida weyn ka qabo inuu ku dhici doono ganacsiyo badan oo Soomaaliya waa marka isbedel ku yimaada dhaqaalaha adduunka hoos u dhac dhaqaalaha yimi shuruuc cusub baa timi shirkadka markaas aan la qabsan karin waa dhimanayaan
waa external midka ka yimaada gudaha waxaa inta badan saldhig u ah xirfadoo yar aqoon yari ilaa mararka qaarkood khiyaamo iyo ay dhinac kala socoto fashilku waa wax laga badbaadi karo inta badan waxyaalaha looga badbaadi karana waxaa ka mid ah in qofku leeyahay qorshe ganacsi oo qoran inuu jiro nidaam la raaco inay jiraan signalo qofka uu develop gareeyay oo uu sheegay in shirkadiisu ay khatar ku jirto waxyaalahaas ka mid ah aad marka fashilka noocyo badan oo kala baxaa Soomaa fashilka saan ku sheegay waa labo waa midka caam ee midka externalka shirkadda dibadda ka yimaada iyo midka internalka oo ka yimaada shirkadda gudaheeda oo badanaa maamul xumo aqoon darro mararka qaarkood khiyaamo ay timaado labadabana waxa laga badbaadi karaa inuu jiro nidaam aad markaan dadweynahan Saciid isku dayay inuu telefoonka maartay u furo inta telefoonka noo soo socdan waxaan rabaa inaad nooga jawaabtid waan soo wici kartaan hadda wixii su'aal waa soo weydiin kartaan barnaamijku waa live program obna kanaal ayaan fadhinaa ka faa'iideysta daqiiqadaha noo haray guud ahaan ganacsiga Soomaalida marka la barbar dhigo ganacsiyada kale waxaan isleeyahay ganacsiga Soomaalidu waa bilow fiican ayaan isleeyahay laakiin wali يا هلا والسلام عليكم الو برنامجك هو لايف كسو دو تي في سومالي ستار مستر كاميرمان قصلاي هذا وسو هرمرتي تليفونك هذا سلبا ماستاي waxaa halka ila fadhiyo qoraagi maartay xafladii ka qayb gashay maalweed oo soo duubtay qoraa Saciid Cali Shire ayaa halka ila fadhiyo marka waxaan soo gudbin lahayd براش وين دعي او كدعش مش صرف دعي رج وين صرف قلن عادي ميدا نيك وين قراق وين او كميدا هاي اذا جاء عادي دول بدن صرف قلن براش تو هاي وانا ما هاي مسلسل وقت بدن يا لا وريستي عادي او من بلوك بدن لا قتي او تاريخ marka barnaamijka waa soo duubay laakiin dadweynaha maanta gaarsiin weynay waa sheegay in la ahaadaan marka barnaamij barankiisa oo hay marka maalinta sabtiga oo balan qaadaysa dadkana soo sidayso insha Allah insha Allah dhammaan nabadda muslimada salaam meel joogaan waxa kale joogay barnaamij joogay ninkii saacibka ahay oo London usoo dhaweeyay wariyaha TV-ga Soomaalida First TV Ibrahim Ali Bafa aad mashjuu asigana okay marka dhammaan umada salaamay adna ma tahay jaan ma isisay adna ku maadinaa هذا ما تصير مسلبة adiga mudan waaya هذا ما تصير waan soo wici kartaan waa ka soo qayb qaadan kartaan barnaamijka telefoonka khiltaha idin kugu qoran yahay eber 7 eber 4 sidee u aragtaa booqshaan Stockholm aad bay waxay ahayd mid xiiso leh dhawaantii Stockholm waa meel Soomaalidu ay muddo deganayd soo dhaweyntood aad fiican tahay dad badan oo saaxiibo ah muddo hore suuqa dambeysay aan la kulmay sidoo kale dad saasoo kale Soomaali oo khubaro aan la kulmay wali waxa wanaagsan in waqti qorraxda aad imaato markaas waxa aad u quruxsan tahay ya hello assalaamu calaykum wa alaykum salaam ay ku soo dhawo barnaamijka Somali Star walaal waan dhawahay waxaan rabaa inaan weydiiyo qorayaasha kale oo badan Stockholm joogo sida uu noo sheegay markii horeba aad sidee ku heli karnaa buugtaas ama waanada iyo tusaalada kulli ay ka buuxdo sida aan ku heli karno aad ayaan rabaa inaan weydiiyo qoraaga qoraaga kaaga jawaabi doono ma santahay waa ma santahay walaal aniga waxaan joogaa hadii ilaahay maanta iyo berri iyo arbacada gelinka hore waqtigaas maahi dadka oo umada ka dhuunta waxaan u badnaan doonaa Ringibi iyo meelaha Soomaalidu joogto iyo makhaayadaha iyo masaajidada badnaan doonaa hadda cadad badan oo buuga ma wada xoogaa yar waa wada marka qofkii meelahan ku kulan insha Allah wuu heli doonaa wixii ka dambeeyna waxa laga soo xiriiri doonaa hadii ilaahay mas'al insha Allah Somali Star TV emailka noo soo diri doonaan markaasna waxaan isku dayeynaa inaan maartay kula soo xiriirno haddaad joogto London iyo meesha ku sugan tahayba marka su'aal kale hadda la soo qoray oo dhinaca SMS-ka xagee ka heli karnaa hadii maartay aan u baahna waa jawaabtaas ka jawaabaysaa waxa kale oo laga heli karaa qofka u baahda oo rabo in online ku gato waxaan leeyahay website la dhaho buuh.net buuh.net idana waa laga heli karaa aad okay ya hello hello